nin ayaa waxa uu yiri intii aad Yurub joogto wax xuquuq ah kuma siinayo asagana waxa uu joogaa Soomaaliya hadda waxa uu imaadaa 5 biloodba mar wuxuuna ila joogaa 5 maalin iyo wax ka yar isagana ayaa Yurub keenay in uu igula noolaadana waa iga diidan yahay in uu furana waa iga diidan yahay sheekho maxaan sameeyaa ma ka fasaqan karaa alxamdulillah horta masaladan oo kale masala fatwa ma aha masala qadaa iyo xukum weeye waayo waa case laba qof dhex yaala hal qof dacwadiina ay miiska taalo qofkii kale dacwadiisa iyo jawaabtiisiina aanay muuqan waxay u baahan tahay markii la idin kala xukumayo in labada dhinacba la dhagaysto saas darteed adiga hadalkaaga fatwo iyo xukun kuguma siin karo anoon isaga hadalkiisa dhagaysan taasi waa midda koowaad midda labaad gabadha su'aasheeda hadalka qayb maqan baa iga muuqata way sheegtay inuu geeyey waxaa kaloo sheegtay inuu Yurub inuu ka soo tagta maahan aysan xuquuq siinaynin inuu kula noolaadana uu diiday halka qayb baa maqan hadalka waxa maqan waxa weeye 5 bilood marba uu maadasho maan la joogaa hay laakiin hadalka qayb baa maqan dacwad marka la dhageysanayo iyada inay soo guurto isaga la noolaato kama inaan hadlan gabadho intaad Yurub joogto ku siin maayo waxa dhici karto dacwad hadda aan fatwo looga bixin karin inay hadalku tahay garta taagan soo guur soo noqo gabadhuna ay diidan tahay waxay ka hadashay kaliya inuu la joogana ma rabo inuu furana ma rabo laakiin inuu diiday inay soo laabato oo ay la noolaato Soomaaliya iyo meeshii kale uu jooga la joogto maynan ka hadlin waxa ku jirta oo kale waxa uu yiri inta ay Yurub joogto xuquuq ah kuma siinayo asagana waxa uu joogaa Soomaaliya marka laga yaabay inay tahay soo guur hay maynan ka hadlin qaybta gabadhu maynan ka hadlin qaybtaasi dacwada saameyn bay ku leedahay hadduu isagu yiri soo guur gabadhuna ay diido xukm nushuus inay qaadataa dhici karta sababahay u diiday baa laakiin in la daraasayo la arko u baahan inay guuri karto iyo in kala duruufteeda in la qiimeeyay u baahan tahay saa darteed ba waxaan ku leeyahay qadiyadani qadiyad qadaa iyo xukum weeye qadiyad fatwa maaha saa darteed masaa'ilka cayaanta saa in la kala xukmo la doonayo ragga qudaada iyo culimada la jooga xilliga uu yimaado ragga culimada ee meesha la jooga gabadhu dacwada inta ay geysato haysu dhageystaan marka garta iyo su'aasha iyo jawaabta iyo garnaqsiga uu dhamaado ba xukunka sharciga la garan karo billahi tawfiiq